السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قيمها بدن ونقل السعودة جنال كان waxaan leenahay horay waxaan noogu soo socday 10 dhowra waxaan noogu dambeeyay 10 yiridka oo muddo dhowr bilood ah ka naga galay qaybtiisii saddexaad iyo qaybtii afraad ayaan dhameystiri doonaa hore waxaan u soo qaadanay qaybtii madaxa iyo qaybtii afka maanta waxaan galeynaa qaybta yiridka dhuunta calaamadaha lagu garan karo oo qofka markuu isku arko uu fahmayo inay yirid tahay qaybta ugu horeysa dhuunta ah waxa lagu fahmi karo waa cuncun dhuunta ah oo qofka markuu maaragtay cuncun dhuunta ka dareemo oo marka qaarkood leeyahay markuu soo yaro waxyaabo kuuskuusan oo uraya ay soo baxayaan marka qaarkood dhiig inuu soo raacaya aad moodid xabeeb marka qaarkood qofka ay qabanayso marka qaarkood marka uu yiraaho kale in xab yar oo isku dhigan oo soo boodayo oo midabkiisa cad yahay ama marka qaarkood midab kala yeelan kara ayuu maaragtay qofka isku fahmayaa cabaar markuu aamuso na xabeeb uu noqonayaa marmarna soo hadlaya ayaa si kadiisa dhuuntii xabeeb ku imaanaysa markuu wax inay ka qaadmayso moodaa haddana dib ay ugu soo laabanaysa calaamadahaas waa calaamadihii lagu garanayo yiridka dhuunta ah kanfeeraha haddaan u gudubno kanfeeraha calaamadaha lagu garanayo waxaa ka mid ah in qofka cabaar doo fadhiyo saas inuu isdhaho isjimciyo uu doonayo waxaa kale uu maaragtay calaamadihiisa ka mid ah kanfeeraha in mararka qaarkood oodimo ay qabanayaan feeraha halkaas ama dhinaca kale ama duudka oodimo mar meel ku waraagaya ama inuu neefta ku taagmaysa camal uu moodayo ayuu maaragtay dareemayaa yiridka feeraha waxaa kale oo dareemayaa qabow badan oo xilliyada qaarkood oo soo adkaysan karin qabowga wuxuu kaloo dareemayaa in dhiig u soo uro kale ama inuu soo dhadhamayo camal uu moodo waa calaamadihii yiridka dadka qaarkood aad ugu darnaado wuxuu noqdaa maalmaal camal inay maaragtay u soo urayso ayuu maaragtay moodaya habeenka saqda dhexe waxay 7 saac ka dambeeyaan qofciisu aad u badan yahay oo riixay aad u badan oo mararka qaar xab wadata ayaa maaragtay soo baxaysa aad iyo aad ayuu maaragtay yiridka xanuunkiisa oo calaamadaas maaragtay u leeyahay mararka qaarkood marka dhaqaatiirta loo tago waxa waaye daawooyin kaalmaadkii uun soo siiyaan laakiin tiibish ahaanna ma aha burokiitana ma aha marka waa yiridkana calaamadaas ayaa lagu garanayaa kanfeeraha iyo kan dhuunta kii madaxa iyo kii afkana qaybtii hore ayaad ka raadsan kartaan haddii alla idmo maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wada xiriir wacan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu